الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا آيادي aynu soo maray qisada mufassiriinta qaarkood ay soo arooriyaan xogaa waa iska soo koobnay waa dhici kartaa kutub badan oo tafaasiir ah inaad qisada ku aragtaan qisadu waxay sheegaysaa in malaa'igta qaarkood ay yidhaahdeen annaga haddii waxa lagu abuuray bini aadamkana lagu abuuri lahaa waxay sameeyeen xumaana maanu samayneen dadna laba malak ayaa la soo dejiyey oo arlada loo soo dejiyey labada malak oo la yidhaahdo haaruut iyo maaruut shahwada bini aadamka lagu abuurayna waa lagu abuuray labada malak markii shahwada lagu abuuray dadkay kala xukumayeen dadna gabadh baa u timi iyadoo xukun ama dhacdo cid ay isku hayaan ayay ula xukun timi gabadh qurux badan bay ahayd oo siday qisadu sheegayso labadii baa dabeedna hungureeyey waxay yidhaahdeen ma yeel aanu ku xukunne dabeedna waa diidday markii ay diidday ayaa maalin labaadiina sidii si leeg bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi yeeli maayo sidaa waxaa iga doonaysaan idinka yeeli maayo oo zinada aad rabtaan ma yeelayo waxaan idinku xidhayaa sharti ayaan idinku xidhayaa haddaad doonaysaan in arrinkaa idinka yeelo ama sanamkan u sujuuda ama qof xaqdarre ku dila ama khamradan cabba saddexdaa arrin mid haddaad samaysaan uun baan idin yeelaya haddii kale maya saddexdii markay eegeen waxay yidhahdeen dee saddexda waxaa ugu sahlan khamriga lafberiyo aan waxba geysanna ma dili karro dee ilaahayna uma sharig yeeli karro qisadu waxay sheegaysaa khamrigay cabbeen khamriga markay cabbeen bay intiiba wada sameeyeen oo caqligu markuu tago dee ruuxu waxba iskama daynayo naftiina waa dileen sujuuddii ilaahay kayrkii loo sujuudayeyna way la yimaadeen zinadiina waa la yimaadeen labadii dabeed markaa waa la qaaday dee cirkaa laga soo laalaadiyey halkaasaa dabeedna lagu cadaabaa ilaa yowmi alqiyaama iyagoo soo foorara oo soo laalaada markaa qisada noocaasi ha ku kadsoomin kutubo badan oo tafaasiiri hadday qorayaan ahlucilmiga qaarkood oo mufasiriinta ka midii may sheeginoo waa qisada noocaasa waa ka gaabsadeen qaarkoodna waaba radiyeen ibnu kasiirka laftiisu wuxuu tilmaamayaa in qisadaa laga soo wariyey taabiciinta qaarkood laga sheegay wuxuu kaloo sheegayaa jamaacaad badan oo mufasiriinta ka midii inay sheegeen laakiin qisada noocaas ah wuxuu odhanayaa xadiis nebi oo saxiixa oo loo hayaa ma jiro alsaadiqu almasduuq oo nebigii ah sala allahu alayh wasalam lagama hayo qur'aankuna qisadan waa ijmaaliyey warka haaruut iyo maaruut ku saabsan ma tafsiilin oo si mujmala qur'aanka loogu sheegay xadiiskii nebigana wax tafsiiloo arrinkaa lagu hayaa ma jiro akhbaarta caynkaasna waxay u badan tahay in laga soo raray kutubihii hore reer banu israa'iil in laga soo naqliyey maadaamay sidaas yadaa tahay khayrku wuxuu ku jiraa in laga gaabsado oo intaa uu ilaahay inoo sheegay la rumeeyo calaa muraadi illaahina loo rumeeyo saasuu odhanaya ibnu kasiir calaa muraadi illaahina loo rumeeyo waxyaalahaasna aan markaa la gelin say xalayba aynu tilmaannayna dee waxay ka hor imanaysaa aayadaha qaarkood oo sheegaya inay malaa'igtu macsuumiin yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun aayado kalena waa akhrinay marka calaa kulli xaal qisada waxaan u sheegaya min ajli tanbiih iyadoo xumaan ay xambaarsan tahay haddana baraarujin aynu baraarujinayno iyo inaan lagu kadsoomin mufasiriinta markaa sheegtay tafaasiirtooda inaad ku aragto
taanad ku kadsoomin ayaynu u baraarujinayna. sixirka waa soo sheegnay xukunkiisa iyo culammadu waxay ka yidhaahdeen, laakiin xukunka ku saabsan ama dilka ah ama ciqaabta ku saabsan cidda fulinaysa waa cid xukuumad ah, fardi iska tasarrufay, ficil uu iska samaynayo ma aha. waxyaalaha xuduudda iyo waxyaalaha markaa umuuraha ku saabsan dee xukuumadunbaa fulisaa, arrin afraad iskaga kacaysa ma aha. waa midda labaadee sheegashada la sheeganayo hebel waa saaxir ama waxbuu sixray dee waxay u baahan tahay caddayn iyo bayino. ahlucilmiguna waxay yidhahdaan assixru laa yasbutu ila biliqraar. sixirku waa wax khafi ah oo qarsoon, qirasho uu ruuxu qirto mooye si kale kuma sugnaado. dadka qaar waxay samaynayaan ruux jingalay ayay jinkii waraysanayaan, markaasuu wuxuu odhanayaa hebel baa wax qabtay ama wax sixray iyo saa iyo saas. waxyaalahaasaa laga yaabaa inay iska qaataan oo iska aqbalaan. yacni taasi bayine maaha, caddaynna maaha. ciddan markaa ruuxa ka hadlaysa cid siqa ah miya oo lagu kalsoon yahay? maya ma aha. faasiqa warkiisana wuxuu ilaahay ina amray inaynu iska hubsanno. allah wuxuu ihi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. marka warkiisu miduu maqbuul iska noqonayo ma aha. sixirkuna sidiisaba wuxuu ku sugnaadaa iqraar, ruuxu qirto ayuu ku sugnaadaa. haddaanu ruuxu qiran lama isbaatin karo inuu wax sixray. shaydaankuna waxaa laga yaabaa intuu ruuxii dureeyo oo ruuxan dhibaateeyo ayaa laga yaabaa weliba dadkii isjeclaa ama qaraabada ahaana inuu isku diro oo uu yidhahdo hebel baa wax kuu qabtay ama hebel baa ku sixray. shaqo labaadoo shaydaaniyuu gudanayaayo dadkii isjeclaa ama dadkii qaraabada ahaa buu isku dirayaa oo inay iyagii isku xumaadaan oo colaad isu qaadaan oo iscolaadiyaan oo isdhibaateeyaan oo hadday doonaan islaayaan. dee waa shaydaanka shaqadiisii buu gudanayaa. marka waxa weeye jinka ruuxa galay in la yidhahdo waa waraysanaya waxbaan ku dhisayaa, dee wax saxa ma aha. wax saxa ma aha. khabarkiisana mid la cuskanaya ma aha. cidda khabarkiisa la cuskadaa ee la qaataa waa cid markaa siqo oo cadli oo lagu kalsoon yahay. dee kanna marka waxa weyaan cadli ma aha, oo ma garanaysid inuu gaal yahay iyo inuu markaa munaafiq yahay iyo inuu mu'min yahay garan maysid. hadduu xataa markaa afka kaaga ashaato inuu munaafiq yahay iyo in kale ma kala ogid. yacni akhbasu nnaas inuu yahay baa markaa laga yaabaa. ruuxan waxba u geysan baa markaa uu duraynaya u dhibaataynayaaba. marka waxa weeye mid warkiisa la cuskanaya maaha. waa caalam inaga qarsoon. yaa weligiin maqasheen ruux markaa yidhaahdo hebel waxbaanu isku haynaa, aniga markhaatigaygu waa 2 jinka ka mida ayaa ii markhaatiya. hadduu ruux sidaa odhan lahaa maxaa odhan lahay? yacni warkaasi mid maqbuula noqon maa. yacni wakhtigii nabiga sala allahu alayh wasalam jin nabiga la kulmay baa jira oo islaamay. weligii miyaa maqasheen xadiis bay soo wariyeen markaa jinku, oo xadiiskan markaa saxaabigii jinka ahaa ee hebel la odhan jiray ayaa soo wariyey. waa caalam inaga qaybiya. yacni riwaayadooda iyo shahaadadooda iyo khabarkooda toonna waxba lagu dhisi maayo, midaynu wax ku binaynayno xukum lagu dhisaayo ma aha. midda labaad waxaan baraarujinayaa oo kale, barashada sixirka la bartaa waa midaan bannaanayn. waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan maadaama 2 malagba ay bareen, dadkana ay uga digayeen barashada la baran karo miyaan laga qaadanayn. jawaabtu waxay tahay taasi waxay noqonaysaa midaan daliil u ahayn. barashada sixirka la baranayaa waa mid markaa xaaraanaan bannaanayn, waana cilmi markaa darar iyo dhib leh. in la bartaana aanu bannaanayn. shareecadana waxaa ku sugan wax la yidhaha sadu daraa'ic, waddooyinka mafsadada keenaya in la awdo. marka in kuhaanta dadka kaahimada ah iyo curraafaystayaasha ah iyo falalowyada ah in loo tago, in wax laga barto, in wax la weydiiyo, faa'iidaysi laga faa'iidaysanayo loo weydiiyo, kullu daalika mid bannaan ma aha. waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man ataa carraafa fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun 40 leyla. ruuxa curraafaysta u taga oo wax weydiiyaa salaad lagama aqbalo 40 habeen.
waa isku xidhan yihiin kaahimada iyo curaafaystayaasha iyo falalowyadu waa isku xidhan yihiin oo faalka dadka aadka u yaqaanaa falka laftiisana waxbay ka yaqaaniin waayo wakhtiyada marka ay faaliyaan wakhtiyada qaarkood waxa u soo baxda waxyaalo yacni musiibo iyo cunsur madow sheegaysa ayaa u soo baxda marka musiibada ay arkaan wax cunsur guurin la yidhahdo isticmaalaan cunsur guurintaasi waa maxay waa nooc sixira waa nooc sixira wey waxyaalaha ay doonayaan musiibadii ay shaydaanku tusay inay yidhaahdaan cid kalean ku wareejinayaa ama ku xawilayaa waxa weeye waa nooc sixira wey marka in wax la weydiiyo iyo in loo tago iyo in markaa istifaado laga faa'iidaysanayo wax loo weydiiyaa ma bannaana yacni hal su-aashoodu waa bannaan tahay haddii laga shakiyo miyay yihiin mise ma aha si taxaquq loo hubsado inuu faaliyo yahay ama falalow yahay taas yada ah in xaaladdiisa wax laga weydiiyo taasi waa bannaanaanaysaa waxaa laga qaadanayaa xadiiskii saxiixa ee nabigu sala allahu alayh wasalam ibnu sayaad uu wax weydiinaya uu lahaa maada taraa yacni maxaad aragtaa iyo su'aalaha uu weydiinayo dabeedna markaa waxaway markii dambe uu weydiinayay gacanta wuxuu aayat dukhaan intuu geliyey uu yidhi maxaa gacantaa ku jira oo markuu yidhi huwa dukhu oo yidhi ikhsaa falan tacduwa qadrak marka waxaa laga qaataa taasi intaan la taxaquuqin oo la xaqiiqsan ama la hubsan ruuxu inuu markaa yahay faaliye uu yahay weydiinta la weydiinaayo si loo hubsado nooca uu yahay si loo garto ta noocaasi inay tahay markaa iyadu mid bannaan ayaa laga qaadanaya laakiin istifaado wax laga faa'iidaysanayo oo la leeyahay faaliye hana rumaysanin hana beensanin amaba la rumaysanayo in wax loo weydiiyaa mid bannaan ma aha waa mid xaaraana wey waa mid xaaraana wey shareecadana saddu dariica wax la yidhahdo ayaa ku jira adillo badanna waa leedahay marka barashada sixirka la bartaa mid bannaan ma aha hadduu ruuxu bartana waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood oo uu cadhoodo inuu adeegsadaa suuragal ah oo uu is yidhaahdo kaad u cadhootay yacni u adeegso taasna dabeedna khasaare iyo ayaan darro iyo diin xumo ay u saabto inuu markaa kufriyo iyo wax la mida ay u saabto mas'alada kale aan baraarujinaya waxay ku saabsan tahay dadka qaarkood ayaa marka ruux ay is yidhaahdaan waa la falay waxay u tagaan oo u geeyaan ama dadka fooxiya ama dadka faaliya ama dadka wax fala ee sixirka yaqaana ayay u geeyaan si uu marka u sheego ruuxan waxa haya ama si uu falkii u furo oo sixirkii u furdaamiyo ta noocaasina mid bannaan ma aha waa xaaraan faaliyaha iyo fooxisada iyo in wax loo geeyo wax la weydiiyo oo la yidhaahdo ruuxan ka warran waa cilmulghaybkii oo cid laga waraysanayo ana taa axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam ay diiday man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun 40 leyla xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey xadiis kaloo asxaabu sunan iyo xaakim ay soo wariyeen wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu alayh wasalam riwaayaadka qaarkood oo ziyaadooyin kale ku daraya waa jiraan laakiin ziyaadooyinka kale culammadu waa ka hadlaan marka ruuxa kaahin u taga oo fasadaqahu bima yaquul wuxuu ku yidhaahdana u rumeeya oo rumaysta faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam waxyigii nebi maxamed lagu soo rogay ayuu ka kufriyey oo ka gaaloobay ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam falalowga in loo geeyaa ma bannaana falalowgana la yidhaahdo furdaami sixirkan waa mid xaaraana inay xaaraan tahay waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam baa la su'aalay oo su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can innushra nebiga waxaa la weydiiyey furdaamiska xadiiska imaam axmed soo wariyey faqaala hiya min camali ashaytaan nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam furdaamiskaasi sixir kale lagu furdaaminayo ama lagu furayaa shaydaan buu ka ahaaday waa shaqo shaydaan xaggiisa ka ahaatay waa min camali shaytaan shaqada shaydaankay ka mid tahay marba hadduu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam min camali shaytaan weeye mid bannaan ma aha
xadiiskaana sanadkiisu waa jayid sida ahlucilmiga qaarkood marka ay tilmaameen, culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa xasan. waxaa kaloo ku sugan saaxirkii ama falalowgii ay ahayd in la ciqaabo oo dadka laga qabto ayaa dalab loo yeelayaa oo xoolo la siinayaa oo yacni budaacadiisii ama shaqadiisii iyo farsamadiisii loo hirgelinaya. marka mid bannaan maaha. waxaa dhici karta in la yidhaahdo oo daruuro ahaan miyaynay ku bannaanaanayn? jawaabtu waxay tahay kufriga shayga ah ama gaalnimada ahi daruura ma bannayso. shaygu hadduu gaalnimo yahay daruura bannayn mayso. agsarka culammaduna waxay qabaan sixirku dhammaantii inuu kufri yahay oo gaalnimo yahay. culammada tafsiilka gelinaysa sida imaamu shaafici waa ogol yihiin haalibka sixirku inuu nooca kufrigaa yahay, waa ogol yihin. mana kala ogid haddiiba laga soo qaado tafsiil baa ku jira haddii la yidhaahdo oo qowlkaa lagu socdo nooca falalowgan isticmaalaya ma noocii kufriga ahaaba ma noocii kalaa. marka sixirku daruuro ku bannaanaan maayo oo mid ay daruura bannaynaysa ma aha. ta kale dariiq kaloo lagu daweeyaa jiro dee waa ruqyada, qur'aanka in lagu akhriyo, lagu tufo, loogu maydho, yacni u akhristo, lagu akhriyo, ilaahay la baryo. dariiqa sharciga ah ayaa lagu daweeyaa. dawooyinka markaa dhiraha qaarkood oo dee loogu maydhana iyaduna waxa weeye waa anfici kartaa, ama caleenta gobtoo loo tumo ha ahaato, ama marka waxa weeye dhiro kaleba ha ahaato, sida markaa waxaa laga soo wariyey salafka qaarkood ay yidhaahdeen waqtiyada markaa doogga ay tahay ayaa loo baxayaa markaa bannaanka markaa loo baxayaa. xaafid ibnu xajarna waa ku soo aroorinayaaba fatxulbaarigii. markaa dabeedna dhiraha ku yaalla ayaa caleentooda xag iyo xaggaba laga soo gurayaa. dabeedna caleentaas dhiro badan oo kala duwan baa la ysku tumayaa, dabeedna biyaha lagu darayaa, dabeedna qur-aankii baa lagu akhrinayaa, dabeedna waa loogu maydhaya. dariiqooyin kaleo kala duwan oo uu sheegayo oo waxyaalo tabiiciya iska ah oo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ku soo aroorinayaana waa jiraan. ciddii u baahani waa raajici doonta. yacni asarka macruufka ee shaa'ica ah ee aadka loo yaqaanno waa garanaysaan, ee ku saabsan 7 caleene gobka ah ee la tumaayo, ee dabeedna biyaha lagu darayo, ee dabeedna qur-aanka lagu akhrinayo, ee dabeedna ruuxii loogu maydhayo. marka dariiqooyinkaasaa lagu daweeyaa. laakiin in la yidhaahdo sixirkii daruuru ku bannaanaanayaa mid bannaan ma aha. sharcan waa mid xaaraana oo aan markaa bannaanayn. marka dariiqada sharciga ah ayaa in la isticmaalo ay noqonaysa. allah wuxuu yidhi walow annahum aamanuu wattaqow, ay walow sabata hadduu sugnaan lahaa annahum aamanuu wattaqow, inay ilaahay rumeeyaan, wattaqow allahna ay ka baqaan oo iimaan iyo taqwa hadday sugnaan lahayd ama dhici lahayd, lamasuubatun min cindi illaahi khayr. ahlucilmiga qaarkood waxay ka dhigaan jawaabtu inay tahay lamasuubatu min cindi illaahi khayr. markaasay bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin maxaa markaa jumlada ismiyada looga dhigay ee jawaabtii low oo jumla ficliya looga dhigi waayo? bacdulmufasiriin baa su-aashaa soo aroorinaysa. markaasaa waxay kaga jawaabeen jumlada ismiyada ahi waxay faa'iidaynaysaa dawaam iyo subuut bay faa'iidaynaysa. markaa sawaabkaasi inuu sugan yahay ayay faa'iidaynaysa. oo la usiibu iyo lamasuubatun min cindi illaahi khayr waxaa ablaqoo si xeel dheeraansha badan lamasuubatun min cindi illaahi khayr. bacdu ahlicilmi dariiqaasay mareen. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen jumla ficliya ayaa la qadarayaa oo jawaabu low laga dhigayaa, waxaana daalli u ah lamasuubatun min cindi illaahi khayr. waana sida jalaalaynka iyo mufasiriin badan oo kale ay mareen. agsarku dariiqadaasay mareen, laakiin bacdina waxay mareen sida hore. marka calaa haada waxay noqonaysaa siday agsarku mareen marka lagu socdo. walow annahum aamanuu wattaqow, hadday sugnaan lahaa iimaan iyo taqwa hadday sugnaan lahayd oo ay ka dhici lahayd, ay la usiibuu calaa daalik, taa waa laga ajar siin lahaa oo sawaab iyo ajar bay ka heli lahaayeen iimaanka iyo taqwada.
iimaanka iyo taqwada waa laga ajar siin lahaa. la usiibu calaa daalik, taa waa laga ajar siin lahaa. lamasuubatun dabeedna waxay noqonaysaa jumlo cusub ayay noqonaysaa oo marka saa laga dhigo waxay noqonaysaa markaa qasam in la qadaro. ay wallaahi lamasuubatun, ajar siin, abaalmarin wanaagsan oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay. min cindi illaahi waxay sifo ka tahay masuubada. sifo markay noqonaysana kaa'inatun baa dee la qadaraya. masuubadaasoo kaa'inatun min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay. khayrun, iyadaa khayr leh. low kaanuu yaclamuun, hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya lamaa aaharuu, yacni waxaway may door bideen, wax kale may door bideen. ama low kaanuu yaclamuuna, hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya in masuubada ilaahay ay khayr leedahay, la aaharuuhu way door bidi lahaayeen waxay masuubada ku helayaan oo iimaanka iyo taqwada ay door bidi lahaayeen. la aaharuuh waa door bidi lahaayeen, iimaanka iyo taqwadaas ayay door bidi lahaayeen. yaa ayuha aladiina aamanuu, allah wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow, laa taquuluu ha odhanina raacina, raacina ha odhanina. wa quuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa, na sug dheh, yacni na sug oo noo kaadi oo ha naga degdegina aanu kaa weelaynoo kaa fahamne, na sug. oo la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa intidaarkii oo sugashada ah. ama la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa nadarkii, ila nadar mar waxaa loo isticmaalaa bimacna alintidaar. unduruuna naqtabis min nuurikum, yacni unduruuna ay intadiruuna, na suga oo ha naga degdegina. munaafiqiintii baa odhanaysaa, waxay ku odhanayaan mu'miniintii, na suga, naqtabis min nuurikum, haddaadna sugtaan waxaannu dhimbiil qaadanaynaa nuurkiinaannu idinka dhimbiil qaadanaynaa. marka nadar oo bimacnaa intidaar ahoo sugasho ahi waa jirtaa, culammada qaarna waa ku fasireen. weliba mutacaddi markay taho mafcuulka toos loo siiyo, intidaarkaa asal ahaan loo isticmaalaa. nadar eegistaahina waa jirtaa, laakiin nadarka eegistaahi ilaa bay ku gudubtaa. haddana ilaah laguma gudubsiine, mafcuulkii baa toos loo siiyo, naadani waa mafcuul. yacni damiirka naadaayi mafcuul weeye, annagana suga. laakiin culammada qaar baa waxay yidhaahdeen nadarka laftiisii waa loo fasiri karaa, ee waxay tahay min baabi alxadfi waaliisaal waxa la yidhaahdo. yacni ficil laazim ah oo aan mafcuulka toos u qaadan oo xaraf ku gaadha baa xarafkii la xadfaa. xadfiyo isaal waa maxay? xarafkii baa meesha laga saarayaa, la xadfayaa. ficilkiina toos baa mafcuulka loo siinaya, asaalatanna mafcuul toosa ma qaato. haddii markaa mafcuulkii isagoo toos loo siiyey la arko, waxaa la odhanayaa waa min baabi alxadfi waaliisaal. waa baabka wuxuu gelayaa xadaf xarfu jarkii la xadfay, iisaalna lagu sameeyo ficilka toos loo gaadhsiiyey mafcuulkii. labada wejiba futuuxaadku waa sheegayaa, jamalku futuuxaadka waa ku sheegaya. wa quuluu waxaad tidhahdaan undurnaa ay intadiruunaa, na suga, ay amhilnaa, noo kaadiyo na sugo, ha naga degdegin, aanu fahanno, noo kaadi dhaha. ama undurnaa, na soo eego, annaga na soo jalleec. wasmacuu, maqla. quuluu bay ku cadfan tahay, ee wasmacuuna dhaha loogama jeedo, oo maquulul qowlkii kuma sii cadfana. waxay noqonaysaa waquuluu undurnaa dhaha, wasmacuu, wasmacuu markaa waxay ku cadfan tahay waquuluu bay ku cadfan tahay, ee undurnaa kuma cadfana. oo lama laha waxaad tidhaahdaan maqla, ee iyagaa laga rabaa inay maqlaan. samaaca qabuul, maqalay aqbalayaan inay maqlaan yagaa laga rabaaye, inay maqal yagu cid amrayaan ma aha.
walilkaafiriina waxaa u sugnaaday gaalada cadaabun cadaab, cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya. weji labaad, aliimun ay mu'lamun cadaab la xanuujiyey, intuu markaa ka qabo shiddo iyo dhibaato cadaab isagu xanuunsanaya ayaa markaa u sugnaaday. wejigaana culamada qaarkood baa ku fasiray, laakiin agsarku waxay qabaan sida kale. aayaddan ilaahay wuxuu u yeedhayaa mu'miniinta magaca iimaanku ugu yeedhayaa. qur'aankana waxaa ku sugan aayado badan oo ilaahay mu'miniinta magaca iimaanka ugu yeedhayo. yaa ayuha aladiina aamanuu, qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu mawaadic badan bay ku soo aroortay oo 90 mawdicin ku dhow ayay ku soo aroortay oo ku timi qur'aanka. 89 mawdic bay qur'aanka kaga soo aroortay. cabdullaahi ibn mascuud waxaa ka soo aroortay inuu yidhi: idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu faarcihaa samcak. haddaad maqasho ilaahay oo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, dhegtaada raarici. fainnahu khayrun ya'muru bihi aw sharun yanhaa canhu. waxaad dhegta u raaricinaysaa, ama khayr buu ilaahay ku amrayaa ama shar buu kaa reebayaa. sidaas aawadeed ama amar baa daba yaalla ama nahyi. hadda maxaa daba yaalla? nahyi. laa taquuluu raacina. amarkiina waa daba yaallaa, waquulu ndurnaa wasmacuu. amarkiiyo nahyigii labaduba waa daba yaalliin. raacinaa erayga ah waxay ahayd waa min almuraacaati, waa na ilaali. muraacaadku waa maxay? waa ilaalin. haddaba eraygaa marka muraacaadka ah saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waa isticmaali jireenoo yacni yaa rasuula allahi na ilaaliyo, bimacnaa fahamkayaga iyo sidaannu wax u fahmayno iyo yacni na ilaaliyo noo gaalgaal, macnuhu saasuu u dhacaya. ha yeeshee nimankii yuhuudda ahaa ayaa raacina markay maqleen si kaloo qaldan bay u adeegsadeen oo waxay uga jeedeen qasdigii saxaabadu uga jeedeen qasadaan ahaynoo xun ayay iyagu uga jeedeen. culamada qaar waxay yidhahaan waxay uga jeedeen min alrucuunati in laga soo qaato oo nuunka asal laga dhigo. rucuunadu waa maxay? waa doqonnimada iyo nacasnimada. alrucuuna markaa raacina kaannahu marka ay leeyihiin caydaa ay kula khitaabayaan, macnaha caydaa bay u jeedeen oo u qastayeen, oo nebiga markaa inay aflagaadeeyaan bay uga jeedeen. qasad xun bay iyagu ka lahaayeen, macnihii macno aan ahayn bayna u jeedeen. bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen afkooda cibriga ah ayuu cay eraygani ku ahaa. saxaabadii isticmaalayay waxay u jeedeen macnaha carabiga muraacaadka iyo ilaalinta ah iyo jiraalinta iyo ukaadinta, taasay markaa u yaqaaneen, taasaynay uga jeedeen. yuhuuddii markay isticmaaleen muraadkoodu wuxuu ahaa inay macno xun ay uga jeedaan oo afkoodiiyo luqadooda cay ku ah, eraygan uu cay ku ahaa, ama rucuunadii luqada carbeedba ku sugnayd ee nacasnimada markaa ahayd inay u jeedeen. marka maadaamay qasad xun u isticmaaleen, waxay noqotay mu'miniintii in laga reebo oo la yidhaahdo idinku eraygan haba isticmaalina, inay macno kale oo qalloocinay uga jeedeen iyo dhaleecayn ah. waxaa laga fahmayaa aayadda allah uu yidhi: min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهو الله inoo sheegay hadalkan markay yuhuuddu isticmaalayeen inay qasad xun ka lahaayeen. min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi, qolada yuhuudda waxaa ka mid ahaa qawmun yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi, qolo hadalka ka beddelaya meelihiisii ka beddelaya. wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa, waxay odhanayaan waa maqallay waana caasina. wasmac hayra musmacin,
waxay odhanayaan maqal hayra musmacin midaan maqlin xaalaa tahay bimacnaa ha maqlin kaannu hay leeyihiin waa ay habaarayaan wa raacinaa bay odhanayaan layan bialsinatihim wa tacnan fi ddiin qalloocin carabkooda ay qalloocinayaan ayay u odhanayaan raacina wa tacnan fi ddiin iyo duris iyo dhaleecayn diinta ay dhaleecaynayaan ayay sidaa u odhanayaan marka eraygan inay cayb uga jeedeen aayaddaa kale ilaahay inoogu sheegay walow annahum qaaluu samicnaa wa atacnaa wasmac wandurnaa lakaana khayran lahum wa aqwama walaakin lacanahum allahu bikufrihim falaa yu'minuuna ila qaliila almuhim maadaama yuhuuddu ay u adeegsatay macno xun ay u adeegsadeen eraygan mu'miniintii waa laga reebay nimanka yuhuudda la yidhaahdana cadaawadday nebiga u qabeen waa badnayd oo xataa markay salaamayaan salaantii lafteeda waa qalloociyeen oo laamkii bay ka saareen waa kuwii odhan jiray assaamu calayk bay odhan jireen assalaamu may odhan jireen assaamna waa maxay waa geerida wa idaa jaa'uuka xayawka bimaa lam yuxayika bihi illaah markay ku yimaadaan waxay kugu salaamayaan waxaanu ilaahay sharciyeyn in lagugu salaamo ayay kugu salaamayaan marka mu'miniintii waa laga reebo oo waxaa la yidhi raacinaaba ha isticmaalina hadda iyagu qasad xun ugama jeedaan hadday mu'miniintu isticmaalaan ee maxay uga jeedaan qasad wanaagsan haddana waa laga reeba oo waxaa la yidhi eraygan kale isticmaala undurnaa wasmacuu yacni markaa sidaa isticmaala inaad tidhahdaan undurnaa aad tidhahdaan maqlana maqala aqbalaysaan culammadu waxay ka qaataan aayaddan oo ka deliishadaan waa midda koowaadi tashabbuha gaalada la shabbahaa inaynay bannaanayn qasad wanaagsanba iyagu u odhan lahaayeen mu'miniintu hadday yidhaahdaan maadaama markaa yuhuuddii eraygan ay u adeegsadeen si xun daahirkii ficilkooda in laga shabbahaa loo diidaya aayado kale oo tashabbuha gaalada diidayaana waa jiraan oo aayado qur'aana ku soo arooray ee axaadiis fara badan oo nebiga sala allahu alayh wasalam kaga soo aroorto tashabbuha gaalada markaa diidaysa markaa taa waa laga qaataa nebiguna wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay allahna wuxu uhi walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu yacnii kuwaasoo kale xaalkiinnu yaanu shabbihin oo ha la mid noqonnina markaa tashabbuhii gaalada waa la diidaya waa midda labaadee waxaa aayadda laga qaataa saddu dariica waddada mafsadada iyo xumaanta keenaysa in marka horeba la awdo mu'miniinta hadday eraygan isticmaalaan eraygana ijmaal ku jiro cid qasad xun lihi inay eraygii adeegsataa ay ka imanayso waddadaas si looba awdo haba isticmaalina idinku waa saddan lidariica waddada mafsadada keenaysaa la awdaya qaacidadaa la yidhahdo saddu dariicada la yidhahdana culammadu adillo badan bay u daliishadeen alcallaamatu ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaahdo iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin aad iyo aad buu ugu dheeraaday waxaanu soo arooriyey 99 daliil oo u daliila saddu dariicaha u daliila oo min alkitaabi wasunnati uu ka soo daliishanayo way jirtaa bacdu alaxaadiisa uu soo daliishanayo aan badnayni inay daciif yihiin laakiin haalibkoodu waa adillo saxiixa weeye waxaanu markaa yidhi hadalka ku soo gebagabeeyey marka uu ka warramayo saddu dariicaha axkaamta shareecada marka la sheegaayo axkaamtu waa amar iyo nahyi waxaa sameeya iyo waxaa ha samaynina amarkaa iyo nahyigaasi mid waliba wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood shay loo amrayo lidaatih iyo shay loo amrayo ligayrihi inuu wasiile u yahay iyo shay loo reebaayo lidaati xumaanta uu xun yahay daraaddii loo reebayo iyo shay loo reebaayo shay daatadiisa u xun inuu wadda u yahay afartaa nooc buu noqday saddu dariicuhu waa shay loo reebaayo manhiyun ligayrih waa shay loo reebaayo xumaan shay iskii u xun oo daatadiisa u xun inuu wadda u yahay loo reebayo kaasaa saddu dariica la yidhaahdaa
marka saddu dariica waxay fadhidaa buuhi shareecada rubuceed 4 meelood marka loo qaybiyo meel bay noqonaysaa marka rubucii shareecaday fadhidaa buuhi axkaamta shareecada 4 meelood oo meel ahaan ayaa saddu dariica geliyay allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyo laa taquuluu ha odhanina raacinaa erayga raacinaa ha odhanina hadday mu'miniintu yidhahdaan waxay uga jeedeen muraacaat na ilaali oo na jiraali ayay uga jeedeen laakiin erayga ha isticmaalina maadaama yuhuudi u isticmaalayso qalloocinay carabka qalloocinayaan daraaddeed macno faasid ah iyo duris iyo dhaleecayn diinta ay dhaleecaynayaan ay u isticmaalayaan erayga ugaba tago u daaya eray waadix oo inay ku gabban karin isticmaala wa quuluu waxaad tidhahdaan undurnaa ay amhilnaa nasug markaa dhaha nasugoo markaa noo kaadi yacni dhaha ama undurnaa ay undur ilaynaa xaggayaga na soo jalleeco na soo eeg wasmacuu maqlana waxaa laydinku odhanaayo samaaca qabuul wa taaca maqla aqbalaysaan oo ateecaysaan maqla walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya ama cadaab aad u daranoo intuu darraansho ka qabo kaannahu isagu xanuunsanaya waa cadaab shiddo badan maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi maa yawaddu ma jecla aladiina kafaruu kuwii gaaloobay min ahli lkitaabi xaalay ahlu kitaab ahaadeen walalmushrikiina iyo mushrikiin xaalay ahaadeen mintu waa bayaaniya mintaa hore an yunazala calaykum in laydinku soo dejiyo korkiinna ma jecla min khayrin ay khayrun khayr in laydinku soo dejiyo ma jecla mintaa dambe waa masiida litawkiid min rabbikum xagga rabbigiin in khayr laydinkaga soo rogo ma jecla wallaahu ilaahay yakhtasu wuxuu ku gaar yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaa'u kuu doono inuu ku gaar yeelo ayuu ku gaar yeelayaa wallaahu ilaahay dulfadli waa ka galladda u saaxiibka iyo nicmada fadligaasoo alcadiimi weyni badan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa gaaladu inaynay mu'miniinta khayr la jeclayn khayrna la doonayn ee shar iyo xumaato ay la doonayaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen min khayrin waxaa loo jeedaa waa waxyi ayaa loo jeedaa biraxmatihina waxaa loo jeedaa nebinimada ayaa loo jeedaa culamada qaarkoodna macnaha waa ka caam yeeleen oo waxay yidhahdeen cumuumkaa fiican oo khayrkii wuxuu noqon karaa waxyi waxaanu noqon karaa waxyaalo kale marka khayr innaba lama jeclo marka waxaa mu'miniinta khayrkaasi ha ahaado khayru dunya iyo khayru alaakhira khayr adduunya iyo khayr aakhiraba macnaha cumuumkaana fiican waayo nakirada siyaaqu nafyi dhacday cilmu lusuul sida lagu yaqaano waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum qaacidadu waxay tahay usuuliga ahi haddii magac nakiro ahi uu dhaco hadal la diiday dhexdii uu dhaco wuxuu faa'iidayaa cumuum weliba min haddii la geliyana cumuumka waxaabay ku noqotaa nas wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buniya aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqaraafi laa yacum waa ka odhanaya saaxibulmaraaqi markuu sheegaayo saddexda xaaladoodee nakirada siyaaqu nafyi dhacdaa ay cumuumka naska ku tahay suurada hadda ku saabsan min masiide ah marka la geliyo masiida litawkiid ah waxay ka mid tahay saddexda suure ee cumuumka ay naska ku tahay bay ka mid tahay hadda hadalkani waa nafyi maa yawaddu maadu waa maxay waa naafiyo ma jecla marka innaba wax jacayli inaanu ka dhacayn maxaynay jeclayn an yunazala calaykum in laydinku soo dejiyo maxay min khayrin wax khayra marka waxay caam ku tahay khayr oo dhan waxyigiina waa ka mid marka macnaha khaaska ah iyo macnaha caamka ah waxaa sii fiican macnaha caamkaabaa fiican qaacidadiina waafaqsan waa noocii cumuumka ay naska ku ahayd khayr adduunyo xataa muslimiintu inay helaan ma jecla iska daa khayr aakhire
inay khayr adduunye xataa helaan oo nabadgelye iyo yacni barwaaqo iyo yacni waxa weeye nidaam wanaagsan iyo waxbaba inay helaan ma jecla khayr adduunya iyo khayr aakhira midna lama jecla noloshaaday ka ba'ayaan noloshaada aad nooshay gaala ka ba'aysaa oo inay kuu quudhay wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilaahayna naxariistiisa wuxuu ku gaar yeelayaa cidduu doono inuu ku gaar yeelo naxariistaasna cumuumkaa fiican shaki waxaan lahayn naxariistu markaa nebinimadu inay naxariis tahay oo raxmad tahay yacnii shaki ma laha aayadaha qaarkoodna waa ugu soo aroortay iyadoo macnaha looga jeedo oo raxmad inta la tilmaamo looga jeedo nebinimada looga jeedo ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya yacni raxmata rabbika waxaa looga jeedaa nebinimada ayaa markaa looga jeeda nubuwada siyaaqa aayadda ka horraysa ayaana caddaynaysa oo waatay yidhaahdeen maa hebel ama hebel laga dhigo haddii cid rasuul laga dhigaayo marka haddii la yidhaahdo wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa naxariista nebinimadii weeye haddii la yidhaahdo shawaahid kalay leedahay haddii la caam yeelo la yidhaahdo way ugu sii mudan tahay nebinimadu naxariista ilaahay waa ugu mudan tahay laakiin naxariis oo dhan ilaahay cidduu doonuu ku gaar yeelaya nebinimada cidduu doonuu ku gaar yeelaya raxmadda roobka cidduu doonuu ku gaar yeelaya fadiilada diiniga cidduu doonuu ku khaas yeelaya ku gaar yeelaya welinimada cidduu doonuu ku gaar yeelaya cilmiga cidduu doonuu ku gaar yeelaya cibaadada cidduu doonuu ku gaar yeelaya marka raxmaddii in la cammimo oo nebinimadu ugu horraysana way ka sii fiican tahay ha moodin gaala inay kula doonayso khayr inay wanaag kula rabto ha moodin shar iyo belay kula doonaysaa waa inaanad ku kalsoonaan waxay kuu tilmaamaan maa yawaddu ma jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi xaalay ahlu kitaab ahaadeen mintaa hore waa bayaaniya inta bayaaniyada calaamaddeedu waa maxay yacni ismu mawsuul ayaa markaa meesheeda lagu beddeli karaa iyo sadru silihii markaasaa macnuhu sax noqonaya haddii ismu mawsuul iyo sadru silihii lagu beddelo muxuu noqonayaa maa yawaddu aladiina kafaruu aladiina hum ahlulkitaabi waalmushrikuuna macnuhu dhacaya kuwaasoo ahlu kitaab iyo mushrikiin ahaaday marka mintu waa bayaaniya daabitkeedii muxuu ahaa ismu mawsuul iyo sadru silihiisii baa lagu beddeli karaa mintii markaasaa macnuhu sax noqonaya fajtanibuu alrijsa min alawthaan fajtanibuu ka dheeraada alrijsa qurunka ka dheeraada min alawthaani mintaasi waa maxay waa bayaaniya alladii huwa alawthaan rijsigaasoo awthaan ahaaday minta bayaaniyadii waa taas daabitkeeduna waa kaa aan sheegay min ahli lkitaabi xaalay ahlu kitaab ahaadeen ha odhan ahlu kitaab ka mid ahaadeen ha odhan walalmushrikiina iyo mushrikiintu toonna ma jecla an yunazala in la soo dejiyo ma jecla calaykum korkiinna lagu soo rogo min khayrin wax khayra in laydinku soo rogo ma jecla khayrkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday ama yunazalo lagu tacalluq siiyo oo la yidhaahdo min rabbikum xagga rabbigiin laydinkaga soo rogo min rabbikum ka dambe waxaa ku bannaan inaad khayrin ka sifayso markay sifo ka noqonayso khayrin maxay noqonaysaa kaa'inin min rabbikum khayrkaasoo xagga rabbigiin ka ahaaday waxaa kaloo ku bannaan yunazalo inaad ku tacalluq siiso tacalluqu waa maxay waa irtibaatulmacnaa macnaha ku xidhan waatay wadaadada odhan jireen xaraf jar iyo xerowba tacalluq kama maarmaan yacni dadkii waxa weeye dee cilmiga ku alqaan lahaa ee cilmiga baranaya had iyo jeer waxay u badnaayeen dadaan marka waxa weeye dee jeebkoodu marka aanu fiicnayn ayay markaa u badnaayeen oo qaninimada iyo dee cilmigu sida badanee haalibka ah wax naadiri waa dhici karaane dee isma waafaqaan ee waxa weeye cilmigii cid markaa waxa weeye aan hayn fiican haynin ama hanti fiican aan markaa lahayn ayaa dhici karta inay cilmigii yacni xaggiisa u kacdo laabilaba ula marka xarafka jarna tacalluq buu u baahan yahay meeluu ku xidhan yahay in la soo dejiyo min rabbikum xagga rabbigiin laga soo dejiyadaasaa marka waxay tilmaamaysaa tacalluqi wallahu ilaahay yakhtasu waa ku gaar yeelay
yakhtasu laazim iyo mutacadday labadaba leedaho yakhtasu waa la soocmay waa la yidhaahdaa yakhtasu waa ku gaar yeelayna waa la yidhaahdaa labada macno mid walba waa fasiix hadda waa kii markaa mutacaddiga ahaa wey oo mantaasaa mafcuulkii yakhtasu noqonaya wallaahu ilaahay yakhtasu waa ku gaar yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa yuu ku gaar yeelayaa man yashaa'u kuu doonuu ku gaar yeelaya marka mantu waa mafcuulkii yakhtasu wallaahu ilaahay dulfadli waa ka galladda u saaxiibka iyo nicmada fadligaasoo alcadiimi weyni badan aayadda aynu soo marray 3 min baa ku jirta 3da goore min ay ku soo aroortay ta ugu horraysa waa bayaaniya ta labaad waa masiida litawkiid oo ta'kiid alcumuum bay u timi waana masiida litawkiidna waa la odhan karaa mu'akkida lilcumuumna waa la odhan karaa litansiis cala alcumuumna waa la odhan karaa mid walba waa lagu magacaabi karaa ta saddexaad waa ibtidaa'u lgaaya min rabbikum allah wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh shay kastaanu nasakhno maadu waa shardiyo oo min aayatin aayad ahaatay aw nunsiha aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiinno na'ti bikhayrin minhaa waxaannu la imanaynaa oo keenaynaa mid ka khayr badan aw misliha ama waxaannu keenaynaa mid la mida alam taclam yaanad ogayn anna allaha inuu ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu ilaahay u awood badan yahay miyaanad ogayn istifaamku waa litaqriir waa la sugayaa waad ogtaha macnuhu dhacaya aayaddan culammadu waxay yidhaahdaan nimankii yuhuudda ahaa ayaa waxay yidhaahdeen muxammed asxaabtiisa marna amar buu siinayaa oo maanta markuu amar siiyo berri buu odhanayaa amar kale siinayaa odhanayaa sidaa ha samaynina maantaoo kalena wuxuu odhanayaa sameeya berrina wuxuu odhanayaa ha samaynina oo naskhiga way diidaan qolada yuhuudda la yidhaahdaa oo waxay yidhaahdeen nasakhaadii ma suuragal aha sharci la soo dejiyey see loo nasakhaa markaas ilaahay wuxuu inoo sheegayaa naskhiga ayuu aayadda inagu sheegay sabab nusuulka sidaa lagu sheegayaa sanad saxiixa kuma soo aroorin laakiin mufasiriintu waa tilmaamaan waxaana dhici karta inay ka qaateen siyaaqa aayadda in shubha lagu radinaayo inay ka fahmeen yuhuudduna naskhiga inay diidi jireenna waa arrin la ogaa wey marka labadaasay isu geeyeen marka qira' ahaan waxaa la akhriyey sida inoo qoran nansakh iyo nunsiha waxaa kaloo la akhriyey nunsikh in la yidhaahdo nuunka hore la godo siinkana la hoos dhigo iyo nansa'ha oo nuunka la kor dhigo siinkana hamse lagu reebo waa qiraa'o kaloo sabci ah abu camr wakayruhu ayaa akhrinaya nansa'ha nunsikhna waxaa akhrinayaa ibnu caamir baa akhrinaya oo quraa'u sabcaa ka mid a marka la yidhaahdo maa nunsikh min aayatin aw nunsiha nunsikh ansakha laga keenay markaa ansakha bimacnaa naskhigeeda ma amarnaa macnuhu dhacaya ama jibriil ma amarno inuu markaa nasakho ama muxamed ma amarno aw nunsiha waynu sheegnay waa ilowsiintii wey oo min alinsaa nansa'ahaa marka la akhriyo nansa'ahaa waxay noqonaysaa dib u dhigga oo nasii'ada ama nas'igu waa dib u dhigga innama annasii'u ziyaadatun fi lkufri nasiigu muxuu ahaa bishii xurmada lahayd in waxa weeye xurmadeedii la dib dhigo bisha kale ka dambaysa xurmadii lagu wareejiyo marka ta'khiir baa kelmadda asalka lugawigu yahay nas'igu waa dibdhigis man axabba an yubsada lahu fii risqihi wa an yunsa'a lahu fii aarihi xadiiskii saxiixa waa kii nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kii jeclaystaa an yubsada lahu fii risqi in arsaaqdiisa loo waasiciyo loo ballaadhiyo
وينسأ له في أثره لو دبلغنا راد كيسا يعني عمري كيسا لو ديريو أي علماء قال كفسرين أما الله بركيه أو دبلغستو أي تهي حق مركا إن لو زياديو أما أي تهي إن لو بركيه وحق الطيادة أي تهي مركا أو ننسأها قراءة مركا لغو السعودو waxay noqonaysaa xukunkeeda aan dib dhigno aanan nasakhin ama waji labaad aanu dib dhigno soo dejinteeda aanan soo dejin lawhul mahfuudka ku dib dhigno waanan hore u soo dejin naati bi khayrin minha aw misliha naskhigu wuxuu leeyahay macna lugawi ah luqa ahaan naskhi waxa la yiraahdaa الإزالة سولينتا واحد الزوليو لبريو ولا يرادا النقل نواليها رارستا وحلا صورو لبدا معنى اللغة هان لبا الإزالة هي النقل والله معنى اللغوي لكن شرعا محاليها نسخ وحلا يرادا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي آخر متراخ عنه حكم شرعية أي لكوريا ليا أو لقاضيا حكم كلو الشرعية وكدن بيا لغو قاضيا كاسا وحل يرادا النسخي والنسخات كاسا ليرادا سيدا وحوية المسلمين تمركوا هوري لغو واجبية يعدي النبي صلى الله عليه وسلم لفقيسا إن يفقى كهر مرسو صدقة النبي قولي بيسو إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أمر بيها هيد واجبه markii dambe waa la nasakho aayada ka dambaysa lagu nasakhay ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimu as-salata wa atu az-zakata hukumkii waajibinta ah sadaqad in nabiga loo dhiibo faqa laga hormariyo waa la rafciyay wujuubkaasa la rafciyo la koryeelo waa nasakhat waa mawduc culimadu isku waafaqsan yihiin nasxigu inuu galay aayado kale oo marka nasxigu galayna waa jiraan oo culimadu isla ogol yihiin oo isku waafaqsan yihiin ay kamid tahay aayada suuratul anfaal ee lagu nasakhay al'aana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum da'fa aayada ka horeysa ee lagu waajibinayo ninka muuminka ah 10 gaal inaanu ka cararin ee u sabro oo la dagaalamo oo 10ka inuu ka carara ayna u banaanayn oo xukunka markii hore lagu waajibiyay markii dambe waa la khafiifiyo waxa la ruqseeyay inuu ka carari karo ee laba inuu u sabra ay waajib tahay laba gaal inuu ka carara ayna u banaanayn laakiin laba wixii ka badan inuu ka carara ay u banaantahay waa mawduuc labaad oo la isku waafaqsan yahay nasxigu inuu galay ala kulli xaal علماء الإسلام وحيسكوا وافقسيهن الشريعة النسخ وحلا يرادا إنه قلي أو أحكامة الشريعة وحكم إذا إلا النسخي وباتفاق علماء المسلمين علماء المسلمين تردم باسكوا وافقسا سنيهم وبدعيهم كودا أهل السنة هي كودا أهل البدعة دمان واسكوا وافقسيه وخلافكم أجرا ألا لهدين لقد تقوايو أبو مسلم على أسبهاني نيل أورنشرا معتزلي أها أيا إصابو wuxuu markaa u yiri khaas yeelis baan anigu ku magacaabaya oo takhsiiskii xagga uu umumka halku galaayo oo afraadii caamka wax laga reebayo ayuun baan waxaan oranayaa daliilkan waqtigu caam ku ahaa waqtigii uun baa takhsiis galay oo inta ka horeysa naska kale markuu soo degay ayuu ku gaar yeelay intii kale ka khasiiso ka reebay سأساوذ ابن السبكي وكورنيا تاج الدين السبكي جمع الجوامع وكورنيا وسماه أبو مسلم تخصيصا أبو مسلم وحكم قعابة يساقوا تخصيص بؤلاء بحد سأساوذ هدين لقم قعابة ولا يلاهدو تسمية ديديه وحنا قلنا يا مركان خلاف اللفظ أول كيس باطلها هذا ويا آيات كي أحاديث تبا نسخ الشيقية محمود ديدا يا مركا أريق النسخي haddii la yiraahdo de wuu khilaafayna de cibar hadalkiisu male marka mu'taziladii kale oo dhan iyo waxa weeye xataa shiicadii iyo khawaarijtii iyo ahlu sunnihi dhammaan waa isku waafaqsan shariicada inuu naskhi galay oo ahkaamta shariicada wax kamida in la nasakhay waxa la ogsoon yahay inoo iman doonta
in waxa weeye qiblada waagii hore loo tukanayey baytulmaqdis qad naraa taqalluba wajhika fi as-samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa qibladii baa markii hore waxa loo tukanayey baytulmaqdis ama masjidul aqsa ayaa qibladu ahayd dabeedna waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay in qibladii laga yeelo kacbada laga yeelo saasaa lagu nasakhay oo lagu bedelay markaa shareecada naskhi waa ku jira aayaddana daliil bay u tahay caqlanna waa bannaan tahay oo caqliga mustaxiil kuma aha naskhi sharcanna waa dhacday ta kale sharaa'icdii inaga horraysay dee wax badanoo ku sugnaabaa shareecadeenna lagu beddelay soo maa shareecaba hadday shareeco nasakhdo maxaa diidaya shareecadii waaxidada ahayd ee kelida ahayd axkaamteedii wax ka mid in xukum nasakha maxaa diidaya wax diidaya ma jiro culammadu waa isla ogolyihin naskhi waa jira haddaba nasakhaadda axkaamta shareecada gasha culammadu waxay u qaybiyaan 3 qaybood 3 aqsaam nooc wuxuu yahay naskhi xukunka iyo tilaawada labadaba la nasakho kow maye xukunkoo keliya in la nasakho tilaawadu baaqi tahay 2 maye in tilaawada iyo akhrinta la nasakho oo rasmigay musxafka ku qoran tahay qur'aannimada loogu tacabudaayo la nasakho laakiin xukunkii baaqi yahay oo aan xukunkii la nasakhin waa 3 anwaac saddexdaba ahlu sunnati waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin naskhigaasi jiro oo 3 noocba ay dhaceen ayna jiraan saasay isku waafaqsan yihiin muctasiladu waxay dooneen inay diidaan bacdi ka midii naskhiga tilaawada iyo xukunka labadaba la nasakhayo ama tilaawada la nasakhayo xukunku baaqi yahay bay dooneen inay diidaan ahlubidaca qaarkood laakiin ahlu sunna jamiican kulluhum waxay isku waafaqsan yihiin labadaa nooc ay diidayaanna inay jiraan waa la wada garanayaa naskhiga tilaawada iyaday baaqi tahay oo musxafka uu ku qoran tahay aayaddii oo xukunkeeda la nasakho aan lagu dhaqmaynin laakiin qur'aannimo loo akhrinayo salaadda lagu tukanayo waa la ysku waafaqsan yahay waana la wada garanaya waa mashhuuro wacaan nooca labaadoo ku saabsan in labadaba la ysla nasakho oo akhrintiina la nasakho iyo dhigaalkii musxafka ay ku dhignayd iyo akhrintii qur'aannimo loo akhrinayo salaadda lagu tukanayey xukunkiina la nasakho iyaduna waa jirta ahlu sunna waljamaaca ku ijmaacsan khilaafka ahlu bidaca dhegaysan muctasile iyo kayrkood iyo shiica inay war la yimaadaan waxba ha ka maqlin axaadiis saxiixina waa ku soo aroortay ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihiin waxaa ka mid a adilada noocaasa yacni akhrinta iyo xukunka labadaba la ysla nasakhay waxaa ka mid ah sida xadiiskii caaisha uu sheegayo kaana fii ma unzila waxaa ka mid ahaa qur'aankii nabiga lagu soo rogay sala allahu alayh wasalam 10 radacaatin macluumaatin yuxarrimna 10 naasnuugoo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markaasaa waxaa lagu beddelay oo lagu nasakhay 5 radacaatin macluumaatin yuxarrimna 5 naasnuugoo la yaqaanaa bimacnaa ilmihii ha qabtiraya oo wiskii uga go'aayo waxbay xaaraantinimeeyaanoo axkaamtii radaacada ka dhalanaysa naasnuugga ilmuhu wakhtiganuu naaska jaqayo naaska nuugo hadduu 5 goor nuugo mar walba intuu qabsado iskii uga go'o oo ay noqonayso naasnuug dherginaya oo sidaa noqonayso 5 goorna arrinkaasi dhaco waxay noqonaysaa in gabadhaa nuujisay hooyo xagga naaska ugu noqonayso xurmadiina waa faafaysaayo yuxarrimu min alradaacati maa yuxarrimu min annasab waa ka axaadiista ay ku soo aroortay wahaakada ciddii naaskaa la jaqdayna waxay noqonaysaa inay walaal xagga naaska a noqonayaan oy naaska ku walaaloobayaan yacni naaska ay ku walaaloobayaan ayay noqonaysaa ninkii markaa ooridaa qabay ee irmaaneeyee sababtaa lahaa
isagana wuxuu u noqonayaa xagga naasku aabbe ugu noqonaya walaalkii yacni xagga naaska ayuu adeer ugu noqonaya waa saas yacni sidaas weeye xurmadii saasay u faafaysa waa tii markaa caaisha aflax ninka la yidhaahdo abilqucays la walaali waa kii ka idan dalbay oo yidhi ma kuu soo galaa markaasay ti maya hay soo geli markaasuu yidhi na adeerkaa baan ahay oo xagga naaskaan adeer kuugu ahay buu yidhi xadiiska bukhaariga fa innii cammuka min alradaaca markaasay caaisha ku tidhi walaalkaa ima nuujina ooridiisaa i nuujisay markaa uu iska tegey markay u diidday isagu wuxuu ku yidhi waxaan ku ahay adeer baan xagga naaska kugu ahay xadiiska bukhaariga markaasay markii dambe nebiga u sheegtay sala allahu alayh wasalam oo ay ku tidhi inna aflaxa akhaa abilqucaysi ista'dananii falam aadan lahu aflax oo abilqucays la walaala waa gabadhii nuujisay caaisha ninka gabadhaa qaba la walaal ah abbaa iga idan dalbo yidhi ma kuu soo galaa anna uma idmino uma fasixin oo waxaan ku idhi walaalkaa ima nuujina ooridiisaa i nuujisay nebigu muxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska bukhaariga iidanii lahu fa innahu cammuki u idan buu yidhi inuu kuu soo galo adeerkaa weeyaan waa xadiiska bukhaariga marka waxa weeye xurmadii dee saasay u faafaysaa xadiiska caamkii muxuu sheegaya yuxarimu min alradaacati maa yuxarimu min annasab marka calaa kulli xaal kaasi wuxuu tusaale u yahay aynu sheegnay 10 radaacaati macluumaati yuxarimna tilaawada iyo xukunka labadoo la isla nasakho ayuu tusaale u yahay nooca saddexaad wuxuu ku saabsan yahay in la nasakho akhrinta la akhrinayo iyo dhigaalka musxafka lagu qoraayo iyo akhrinta qur'aannimo loo akhrinayo in la nasakho laakiin xukunku baaqi yahay kaasna waxaa ka mid ah aayatu rajmi ayaa ka mid ah aayaddii rajmiga oo waa kii waxa weeye cumar ibnu khataab uu sheegay xadiiska saxiixa inuu yidhi yacni waxaa ka mid ahaa qur'aanka aayadda allah uu yidhi الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آياتنا وأخرني وأنا أخرني وأنا ويليني marka tilaawadeedii baa la nasakhay waxaan ka baqayaa buu dadka hadii waqtigu ku dheeraado inay aayada inkiraan oo yiraahdaan quraanka kuma hayno aayadana waa akhrinay waana weelanay nabiguna waa rajmiyay yaani marka saas oo oranay marka xadiiska saxiixa saasuu tilmaamay ala kulli hal saddexda nooc nasxigu wasaasiyada bay u jiraan nasxigu saasiyada ayay u jiraan marka aayad ka soo la nasakho mid ka khayr badan baa ilaahay keenaya mar waxay uga khayr badan tahay xagga suhuulada iyo sahlanaanshaha marna waxay uga khayr badan tahay xagga fudaydka waa ka kooranaayaba jalaalaynku yaani bi khayrin minha ay fi suhulati aw kathrati ajri ama kathrati thawabi yaani ajar badnaanta ama fudaydkay kaga khayr badan tahay aw misliha ama way la mid tahay marka iyadii bay la mid tahay culimada qaarkood aayadda waxay ka daliishadeen aayad haddii la nasakhayo waa in aayad qur'aanu nasakhdaa xadiis nebi ma nasakhi karo oo waxay yidhahdeen na'ti bikhayrin minha aw misliha xadiiska nebigu qur'aanka lama misli aha kamana khayr badna jumhuurku waxay yidhaahdeen aayad haddii la nasakhayo ilaa waa in aayad qur'aani nasakhdaa waayo xadiiskii mislina lama aha kamana khayr badna aayaddii laakiin calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay waa in uu bannaan yahay xadiis nebi inuu naasikh noqdo oo aayad qur'aana uu nasakhaa inay jaa'istoo bannaan tahay weeye inay misli la yahayna waa jirtaa waxaa caddaynaya xadiiska abu daawuudkiiyo imaam axmed ee soo wariyeen alaa wa innii uutiitu alqur'aana wa mislahu macahu nabigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam aniga waxaa laysiiyey qur'aanka wa mislahu macahu mid la mida qur'aankii oo weheliya ayaa laysiiyaa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka xadiisku qur'aanka waa la misli xadiiska saxiixa ah ayaana caddaynaya inuu la misli yahay haddii la yidhaahdo qur'aankii waa qaطci xadiisku hadduu aaxaad yahayna qaطci ma aha oo waa danni siduu danni qaطci u nasakhi karaa taa waxaa lagaga jawaabayaa nuzuulka qur'aanku soo degay qaطci ha ahaado laakiin xukunkiisu inuu istimraarayo baaqi noqonayo ilaa yowmi alqiyaama oo aan la nasakhi doonini qaطci ma ahe waa danni
istimraarka xukunku daa'imayo aan la nasakhi doonini waa mid la malaynayey ee mid qatcan yaqiin loo hubay inaan la nasakhi doonin maaha maadaamay sidaas tahay oo qaabilun linaskhi marka hore uu ahaa oo istimraarkiisa la danninayay danni haalib ah laakiin aan la qatcinaynin haddii daliil dambe soo arooro xadiis aaxaad oo kale u yimaado oo uu xadiiskaasi sheegayo markuu xadiiskaasi soo arooray laga bilaabo in xadiiska lagu dhaqmaayo oo xukunkii aayadda aan lagu dhaqmayn dee waxa weeye dee danni buu caariday istimraarkii iyo dawaamkii xukunku daa'imayay danni buu ahaa xadiiskan aaxaadkiina danni weeye marka sidaas aawadeed ayaan marka caqlan iyo sharcan midnaba aan wax mamnuuca inay ahayn in aayad qur'aana xadiis nebi walow aaxaadba ha noqdo inuu nasakhaa aynay mamnuuc ahayn qowlka saxiixa ah weliba waxaan ku darayaa naskhiga ku saabsan tilaawada in akhrinta la nasakho ijmaaca culammadu ku ijmaacsan yihiin iyo axaadiista ku soo aroortayba yaday daliil u yihiin waxa kale oo saddexaad oo u daliila sanuqri'uka falaa tansaa ilaa maa shaaa allah aayadda allah uu yidhi inuu ilaahay hadduu doono wax ka mida inuu ilowsiinayo markaa sanuqri'uka falaa tansaa waxaannu markaa kaa yeelaynaa mid akhrinaya ama waxaannu ku amraynaa inaad akhrido ama waxaannu kaa yeelaynaa mid akhrinaya oo falaa tansaa ma ilaawaysid ilaa maa shaaa allah yacni ku ilaahay doono inaad ilowda mooyaane kaa la soo reebay muxuu yahay culammadu waxay yidhaahdeen waa ka tilaawadiisa la nasakhay oo qur'aanka tilaawadiisa la nasakhay wuxuu noqonayaa kaa mustasnahee la soo reebay ilaa maa shaaa allah ayuu gelayaa allah wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin wax kastaanu nasakhno min aayatin aayad ahaatay maadu waa shardiyo ficlu shardigiina waa nansakh min aayatin waa lagu tamyiizay aw nunsiha aw nunsikaha nasiya waa ilaawey ayaa la yidhaahdaa ansaana waa ilowsiiyey weeye markaa nasiya marka hore waxay qaadanaysaa hal mafcuul hamse tacdiyaa marka la geliyo ansaa marka la yidhaahdo waxay qaadanaysaa mafcuulkii horay qaadan lahayd ee ficilku mutacaddiga u ahaa almutacaddi liwaaxid iyo hamsada tacdiyada la geliyey oo mafcuul labaad ay ku gaadhayso laba mafcuul bay markaa qaadanaysa labadii mafcuul mid baa haddaba markaa sheegan oo waa damiirka ha'da kii kale waa xadfan yahay waa maxay waa kaafu damiir nunsikaha waa muqadaro isagu waa maxduuf mar haddii la garanaayo dee mafcuulka in la xadfaa waa dhacdaa wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir waa ka ibnu maalik odhanaya marka mafcuulu bihiga xaalkii waxa weeye aanu ahayn labada xaale uu soo sheegay aan ahayn waa marka ay darar keensanaysee haddii kale xadafkiisu waa bannaan yahay ya wa xadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma shayga la garanaayo in la yska xadfaa waa dhacdaa walow marka hadduu doono dee khabarba ha noqdo waa dhacdaa in marka waxa la xadfo waa dhacdaa ama mubtadaba ha noqdo ama mafcuul ha noqdo ama hayrkii ha noqdo maa nansakh wax kastaanu nasakhno shay kastaanu nasakhno min aayatin aayad ahaatay aw nunsiha aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiinno adiga nebi muxamedow sala allahu alayh wasalam hee na'ti bikhayrin jawaabu shardiga waa kaa na'ti bikhayrin waxaanu la imanaynaa mid ka khayr badan minhaa yacni aayaddii aanu nasakhnay ama ku ilowsiinnay mid ka khayr badan baanu la imanaa marka ta la nasakhay oo keliya mid ka khayr badan la keeni maayo xataa tan la ilowsiiyey dee jawaabu shardi waa u taalla ila waxay ku cadfan tahay aw nunsiha waxay ku cadfan tahay nansakh bay ku cadfan tahay marka marlayba haddaanu nasakhno iyo haddaanu ku ilowsiinnaba mid ka khayr badan baanu keenaynaa marka naskhu tilaawihii lafteeda aayaddan waa laga qaadanayaa bay yidhaahdeenoo saddexdii noocba waa soo gudagelayaan bay yidhahdeen kii xukunkeeda la nasakhay kii xukunkiiyo tilaawada labadaba la isla nasakho nooca la ilaawayo la ilowsiinayu soo gelaya nooca marka waxa weeye tilaawada keliya la nasakho xukunku baaqi yahay oo nunsiha buu isaguna soo gelaya laba nooc baa markaa soo geliyay wahaakada aw misliha ama mid la mida ayaanu keenaynaa alam taclam miyaanad ogayn ana allaha inuu ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu ilaahay u awood badan yahay miyaanad ogayn
alam taclam miyaanad ogayn ana allaha inuu ilaahay lahu mulku samaawaati isagoo keliya inay u sugan tahay yeelashada cirarkiyo waalardi dhulka yeelashadiisu wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi ilaahay hayrkii xaaluu ahaaday min weliyin gargaara idinma sugnaan min weliyin bay sifo kahaydo waa laga soo hormariyey saas aawoodee xaal bay ka noqonaysaa min weliyin gargaara idinma sugnaan wala nasiirin mid idiin heliyaana idinma sugnaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk